bishii November ee sanadkii 2019 maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa isaga oo maqana ah waxay ku xukuntay dil toogasho ah qofka aan ka hadlay oo ah Cali Axmed Guure Cali Qoyane. ninkan oo ahaa horjooga weyn oo ka tirsanaa kooxda argagixisada ayaa goor dhow lagu dilay deegaanka Mubaax ee gobolka Hiiraan waxaana dilkiisa geystay rag dhalinyaro ah oo hubeysan kuwaas oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidanka xaquudirka deegaanka ee Macawisley. Cali Axmed Guure Cali Qoyane ayaa mas'uul ka ahaa dilka Allah u naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cismaan Cabdi kaas oo 19 bishii Abriil sanadkii 2019 qarax miino oo lagu aasay maqaayad uu fadhiyay lagu dilay. dilka Rashiid waxaa loo haystay oo maxkamad loo soo saaray gudoomiyihii xilligaasi ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Cawaale oo isaguna ku dhintay xabsiga. nin kale oo lagu magacaabo Nuur Mahad Alle iyo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ahaa. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil toogashaha waxay ku fulisay Nuur Mahad Alle kaas oo qisaasta lagu oofiyay waxaase xabsiga dhexdiisa ku geeriyooday Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale oo ahaa gudoomiyihii degmada Maxaas kaas oo isna loo haystay fududeynta dilka gudoomiye ku-xigeenkiisii. sidoo kale maxkamadda ayaa xilligaas xukuntay Cali Axmed Guure Cali Qoyane dil toogasho ah ayayna ku xukuntay waxaana uu ahaa maskaxda ka dambeysay dilka Rashiid Cismaan Cabdi kuwaas oo ay ka qayb qaateen 3 qofood oo uu ku jiro Cali Qoyane iyo gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale. ka hor xukunka maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa dhageysatay cod ay ku wada hadleen Cali Qoyane iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale markii uu dhacay dilka Rashiid Cismaan Cabdi kadib. مقرر في أبسط ترتيب ورن يعني عطها لما قلنا حال كذا كورن ما في دوا في عنتها بقول هو إنه أم بيسوي إبن حيوان بردان إذا مقادنا التحق أنا قلنا قلت لهذا أن حبينا تان وحوش شيء بتان كم مجرك وفقيم إيمان إمويدين وحكت أنا وإنكري إلهي مقادنا تاي. sidoo kale ninkan oo laf dhuun gashay ku ahaa shacabka Hiiraan waxaa loo haystay inuu ka dambeeyay weerar ay ku dhinteen ku dhawaad 40 qofood oo dad shacab ah oo u badnaa Birmageeda loogu geystay bishii September sanadkii 2022 deegaanka Afridood oo ku yaala duleedka magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne. waxa uu ahaa nin dambi ka galay dadkiisa waxa uuna si joogto ah u waday dhibaatada uu ku hayo dadka isaga uu ka soo jeedo. hase yeeshee caawa ayuu ku baxay gacanta wiilal dhalinyaro ah kuwaas oo la sheegay in aabahood uu xirtay ka hor inta aysan dilin. dilka waxa uu ka dhacay deegaanka Mubaax oo ku yaala duleedka degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaa xusid mudan in walaalkiis isaga la dhashay oo hooyadiis iyo aabihiis ay dhaleen oo argagixisada ka tirsanaa in bilooyin ka hor ciidan ka tirsan xaquudirka deegaanka ee Shabeellada Dhexe ay ku dileen deegaanka Daarunimca ee gobolkaas. ninkaas ayaa lagu magacaabi jiray Xamza waxa uuna ahaa nin ay isku hooyo isku aaba yihiin Cali Qoyane caawa la dilay.